degmada Boondere oo kamid ah goobaha uu sida weyn u saameeyay roobkii dhawaan ka daayay magaalada Muqdisho ayaa maanta waaxda gaadiidka dawladda Hoose Xamar waxay ka bilowday hawlo ay biyaha kaga saarayso qaar kamid ah wadooyinka ay biyaha roobka fadhiisteen iyadoo uu kormeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriisow sidoo kale duqa magaalada Muqdisho waxa uu kormeeray qaar kamid ah guriyo ku yaala degmada Boondere oo ay daadadka roobka dumiyeen iyadoo qoysaskii guriyahaasi ku noolaa ay isaga barakaceen gudoomiyaha degmada Boondere ee gobolka Banaadir Seenab Yuusuf Weliye ayaa warbaahinta u sharaxday khasaaraha roobka uu geystay roobabkii mihigaanka ah oo habeen hore da'ay khasaaraha ay geystay intuu la egyahay iyo wixii laga qaban karo iyo hadda halka ay joogto xaaladdu sida ay joogto saakana waxaana soo gaaray maxaa booyado gurmada oo yacni biyihii inay dadkii ka maaragtay ay biyihii guraan la rabo booyadiina hadda waad arkaysaan shaqadii way wadaan alxamdulillah roobka ilaahay baa keenay nimco ilaahay keena waaye Boondeerana hadda biyaha dhibaato markastoo roob yimaado saasay u qabtay nafaaba dhici jirta laakiin alxamdulillah hadda naf ma dhicin waxa dumay laakiin guriyo dumaa jira aduu ilaa 9 guri ayaa xaafadan ka duntay ilaa 300 oo gurina biyuhu habeen hore ilaa shalay lagama bixin laakiin dhulka ooman ayaana kaalmeeyo guriyo xoogaay laftigooda way dageen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriisow waxa uu ku baaqay in loo gurmado dadka danta yar ee uu roobka saameeyay isagoo tilmaamay in maamul gobolka Banaadir uu ku hoolan yahay qorshayaasha lagu maareynaya sidii xal looga gaari lahaa goobaha bulacadaha roobku waa nimco ilaahay laakiin haddana annaga ka maamul gobol Banaadir ahaan waxaa mas'uuliyad naga saaran tahay in shacabka loo gurmado gurmadkiina saad u jeedaan waxaan soo dirnay 10 booyado oo aan ugu talagalnay in ay biyahan ka nadiifiyaan meesha oo xalka ugu dhow kumeel gaarka hadda noqon kara laakiin aan qorshayaasha aan wadno waxay tahay haddana aan ka imid magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxay sidii aan xal ugu heli lahayn arrimahan bulaacadaha iyo sidii biyahan meelaha fariisanaya aysan mar dambe u fariisanin halkaas oo waqtiga dheerna waa wadnaa kan kaloo dhowna oo gurmadka degdega ahna in biyihii meesha laga saaro dadkiina guryahoose ugu noqdaan iyadana waa xalka kale oo aan wadno waxaan kaloo wadnaa tirikoob khasaaraha intuu leeyahay si aan u ogaano waxa aan qaban karno ugu dambeyntii waxaan baaq u jeedinayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo bulshadaba in xilliga roobaadka aad la isugu gurmado qoysas waxaa jiro aan awoodin gurigooda inta ka baxaan guri kala tago annaga maamul ahaan diyaaranahay laakiin shacabkana waxaan rabnaa inay garab istaagaan Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho